ku-xigeenka gudoomiyaha nabadgelyada deegaanka Dhadhaab Kulo Ibrahim Xaaji ayaa shacabka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ugu baaqay inay nabadgelyada dawladda kala shaqeeyaan. walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa in arrimihii amniga ay fiiriyaan zaid. gudoomiyaha nabadgelyada u qaabilsan Dhadhaab ayaa shacabka uga digay dadka ilmaha xadaya wuxuuna waalidiinta ku booriyay inay ubadkooda ka warqabaan. dad baa ku soo talagalay inay ilmaha meeshka laga aruuriyo oo meelaha kala ligeeyo lagu gato oo la dilo oo waxay ka baxsanayaan kiliyaha wadnaha oo ka baxsanayaan baa jiraan. inaad ku digtoonaataan ilmihiina kuwii yaryaraa waa inaad ogaataan iyo kuwii weynaa meesha ay joogaan iyo qofkii ay la joogaan. Mr. Kulo ayaa sheegay in dhawaan ay ka hortageen fal lagu xadeeyay 5 caruur ah oo qaab sharci darro u safrinayeen dad aan dhalin. maalin dhaweed meeshan Xagarbuul waxaan ku qabanay 5 cayaal oo nin Soomaali reer Mombasa haasto oo wada Soomaali ah oo laga soo dhiciyay. maxaa loo wadaa xagga la geynayaa waa la gudbinaa Tanzania la geynaa mise wixii ay ka baxsanaan waa la dilaa ilmaha. bulshada ayaa ugu baaqay inay ubadkooda la socdaan. culimadeennan waxaan ka codsanayaa meel ay joogaanba dugsi noqota madrasad noqota masaajid noqota inay arrimahan faafiyaan waayo dadkii ilmahan aruurinaya waa muslimiin haddana waa qaar Soomaaliya ku jiraan qaar reer Mombasa waa ku jiraan. waa inaad digtoonaataan ilmihiina meesha ay joogaan iyo qofkii ay la socdaan waa inaad ogaataan. ammaanka ayuu sheegay inuusan sidii hore ahayn wuxuuna shacabka kula dardaarmay. arrimihii waayahan ma fiicna dhinacan burcad baan haysataa dhinacan kuwii odayaashii baan haystaan dadkii loo talagalana idinkun waa ogaada Soomaaliyeed waa iga codsi waa iga taxgelin waa waansi inaad digtoonaataan dhinaca amniga iyo dhinaca ciyaalkiina aad fiirsataan. dhanka kale bandowga madaxweynaha dalka uu dhawaan saacadaha ku daray ayuu shacabka ugu baaqay inay u hoggaansamaan. kisacay bilaawani ilaa 10 saac subaxdii waa inaad ogaataan baashi corona la dhahayna wax cusub soo bixi kala oo kii hor oheen waa waji cusub ah waa amar dawladeed. ugu dambeyntiina halista caabuqa COVID-19 ayuu shacabka uga digay. marka waa inaad digtoonaataan yaa lidin qabanin meeshii oo ay isku imaadaan waa in xoogoo la kala fogaadaa waa in mask la isticmaalaa waa in gacmo shadha leen waji cusub soo baxay baash hadda Nairobi dadku waad ku baaba'ayaan runtii gaaris naftigeed waa saas gaaris dad ka warqabtaan had waa saas soo markii yaa la yareysanin. Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star Dhadhaab.